iimaanku dhadhan macaan buu leeyahay ilaahay oo lagu xidhnaadaa dhadhan macaan bay leedahay. iimaanka macaankiisa cidda hesha waxaa ka mid a buu yihi salaasun man facalahunna faqad daaqa طacma aliimaan buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh. saddex ninka dhadhamiya, saddex ninka sameeya iimaanka dhadhankiisii macaana wuu dhadhamiya. iimaanku dhadhan macaan buu leeyahay ilaahay oo lagu xidhnaadaa dhadhan macaan bay leedahay. walidaalika waa axad culamaa'i salaf waxaa laga sheegay wuxuu ihi 20 sannadoodna naftaan qasbayay inay salaatuleylka u kacdo, 20kii dambena waan macaansanayay buu leeyahay, dhadhankeedii baan gaadhay. intii hore waan qasbayay buu leeyahay oo hoggaan baan ku hayiyey inaan layliyo, laakiin markii dambe waxaan gaadhay buu leeyahay in aan macaansado ilaahay la xidhiidhkiisa subxaana wa tacaala. sidaa ogeed wuxuu nabigu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh salaasun man facalahunna faqad daaqa طacma aliimaan. saddex ninkii sameeya iimaanka macaankiisa wuu dhadhamay. man cabada allaha caza wajal waxda, ninka ilaahay subxaana wa tacaala keligii caabuda oo waacطaa zakaata maalih طayiba biha nafsuhu fi kuli caam, oo bixiya zakadii xoolihiisa isagoo naftiisu ay raalli ka tahay oo rabo inuu zakaysto kuwii la yidhi zakaysta ee fiicnaa bixiya. wazakaa nafsahu buu nabigu oo naftiisana daahir yaala. saddexdaa ninka isku darsada aliimaanu billaah oo ilaahay keligii inaad caabudo, inaad maalka bixiso oo dadka ilaahay ku yidhi siisiisi, iyo nafta inaad daahir yeesho. saddexdaa ninka isku daraa buu nabigu leeyahay kaasi wuxuu dhadhamiyey maxay? wuxuu dhadhamiyey buu nabigu leeyahay طacma aliimaan, iimaanka macaankiisa.